iyadoo ay xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland ay wado dadaalo lagu dhisay wadooyinka dalka ayaa haddana waxa jira wadooyin badan oo ay ka muuqdaan dayactir la'aan sida wadada u dhaxaysa magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera oo ay dayactir la'aan ka muuqato 50 kiiloomitir oo kamid ah wadadaasi waxaana shilalka ugu badan ee ka dhaca wadada u dhaxaysa magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera badankoodu ay ka dhacaan 50 kiiloomitir ee aanay xukuumaddu dayactirin haddaba waxaa shalay galigii dambe shilal kala duwan oo sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac ay ka dhaceen jidka u dhaxeeya magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera waxaana shilalkan ay dhaceen kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo kuwa xamuulka kuwaas oo kala siday raashinka sonkorta iyo gaariga kale oo isna sidii xoolo nool oo geel ah shilkan oo ay ka dhaceen dhimasho hal qof iyo 48 neef oo xoolo ah waa ka mid ah darawaliintii gaadiidkaasi oo ka warbixinaya sida uu shilku u dhacay ilaa 48 neef ayaa dhintay aye waxtadi ma dhiman aye saaso meesha godbo gaarigu meesha ahaa gaari hore laga qoday deetan gaariga ma soo gaari waaraada daba socday gaariga laba candhool baa uu xiriiriyay deetan uu socday gaarigi deetan ana waan isku xigo waan wax bartaas ma baaburta maris waan marayna waan qarsay markiiba indha maca wixii uu quusun gaari ku taaba quusun ciidanka ilaalada wadooyinka Somaliland ee taraafiga oo shilka kadib si degdeg ah u soo gaaray goobta uu shilku ka dhacay ayaa iyaguna ka hadlay shilkan iyo waxyaabaha sababay ilaahay ma jirka uu ka soo duwado tan xaq uu soo geeray halkan uu tan ku dhacay anaga waxa loo keenay saldhiga dacburugtii oo la sido nin karaada iyo daroolkii ayaa noo yimid wuxuu ashan inoo kala ku jira ee ka soo baara oo soo gurban taliye saldhiga gaariga yagi hadda ninkiina wata